no sabaro Somalida dhammaanteed isu saamaxo sidaan doon annagoo saafi ahaa saatirow baryaynaaye annagoo saafi ahaa alloo noo sabaro samanoogu baaqe alloo noo sabaro samanoogu baaqe heavy weapon systems to get them off the streets and into cantonment areas. We're not here to disarm, simply to have that removed from Mogadishu so that we can move freely through Mogadishu and go to our objective, Somali people, which is our common objective. And I will say that we will work closely to make sure that we do deconflict and that I'm able to perform my mission as quickly as possible before months ahead. We will stay here only as long as it takes us to provide security on those relievers. For being here, because by itself that indicates that we can cooperate. So I would ask for your assistance in making Mogadishu a very, I won't say benign environment to be here. And I will be working very closely with Ambassador Oakley and with your, again, take our forces back out of Somalia. Make a few remarks. Then we'll have a discussion of these studies. Thank you much. One of you wants to go first. Distinguished friends and my USC colleagues, I am very pleased that some of my associates from both sides of the city are actually meeting today. It is even more significant that my brother Ali Mahdi Muhammad and I are meeting for the first time in more than a year. A great deal of preparation has been made by many USC members of both sides of the city to make this important event take place, to turn our dream into reality. I would like to take this opportunity to thank personally to my brother Ali for accepting my proposal to meet for the unity of our movement and for the good of our country. SB and participate in the struggle to remove the dictatorship. The long struggle against the regime can be divided into three phases. The second, from April to May of 1991. But even in the third phase, indirectly, in the sense that they participated, in the sense that the majority of the USA supporters in the north refused to hit from behind their brothers in the south, who were engaged in the struggle to chase Yadmare out of the country. So even though they were physically not together, they were working together. That is a good sign that the members of USC are more united than is readily visible, but remove order to resolve the national problems. I wish to take this opportunity to express my gratitude to Ambassador Oakley for organizing this very important meeting, which is historical in its scope and expectation. I am
support our effort of restoring Somalia as a viable country. Thank you once again. waxaan mahad u soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo sida runtaa u oomaneed maanta taariikhiga ah oo aan dhihi karno maanta waa maalin taariikhda ummadda Soomaaliyeed meel weyn ka geli doonta kadib markii dhibaatooyinkii faraha badnaa oo ismaandhaafka ahaa ay dhaceen dhibaato jiray lagu dadaalo sidii loo samata bixi lahaa ummadda Soomaaliyeed balse waxaa soo baxaysa in amuurtii rabbi inay sugaysay maanta oo ahayd maalintii uu ilaahay ugu talagalay aniga iyo walaalkay caydiid inaan is aragno in ilaahay uu maanta ka dhigay maantana nasiib wanaag aan halka u kulannay. My brother Ceydiid and me have met in this historical day and together planning to heal the wounds that has been existing. And we are also expressing our wishes to all Somali people. wax weyn ma naga doonto haddii uu ku koobnaado is-aragga iyo isgacanqaadka haddii uu ku koobnaado wax weyn naqamayso waxa ulajeedada iyo macnada weyn yeelan doona waxa weeye miraha ka soo baxa is-aragga iyo wada hadalka miraha ka soo baxa weeye midka ulajeedada weyn leh. waxaan marka ilaahay ka baryayaa in is-aragga kale uu noqdo mid albaab cusub u fura ururka USC iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee nabadda jecel. inaan u mahad celiyo safiirka Maraykanka Ogle iyo Janka iyo dowladda Maraykanka guud ahaan iyo dhammaan inta ka soo qayb qaadatay ciidanka loogu deeqay ummadda Soomaaliyeed. waxaan uga mahad celinayaa sida hagar la'aanta ah ee ugu soo gurmadeen ummadda Soomaaliyeed. waxaana ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed ka sugaysaa waxqabad dhaba oo la taaban karo iskugu nimaado iyadoo xaaladda Soomaaliya ay xalisatay ee aan iswadaacaynayno inaan iskugu nimaado mar dhow ayaan rajaynaynaa.